Missing baby alert. Please share and stay vigilant. A 1-week-old infant, Mohammed Imad Shamar, has been abducted from Midstate Mall in Belleville, Cape Town. dhacdo naxdin iyo layaab leh ayaa ka dhacday xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Cape Town ee Belleville kadib markii lagu afduubtay ilmo 7 dhalan. booliska gobolka Western Cape ayaa baaraya afduub loo geystay Mohammed Imad Shar oo ah wiil yar oo 7 cisho jira ama sitimaan dhalan kaasoo laga afduubtay suuqa Midstate Mall maalintii Sabtida ee aynu ka soo gudubnay. hooyada dhashay ilmahani yar oo booqatay Midstate Mall ayaa la sheegay in ay cunugeeda u dhiibtay qof ay taqaanay kadib markii ay u baahatay suuli. kadibna markii ay soo laabatay waxa ay meesha ka weeday ilmaheedii iyo qofkii haayay. arrinkan ayaa isla markiiba booliska lagu wargeliyay waxaana boolisku uu bilaabay baaritaano lagu baadigoobayo afduubka ilmahani yar. booliska gobolka Western Cape waxa uu u baaqay bulshada inay ka wada shaqeeyaan sidii Mohammed loo heli lahaa isla markaana loogu soo celin lahaa si nabad ah iyadoona qof kasta oo xog ka haysa ka codsaday booliska inay la soo xidhiidhaan laamaha amniga. Mohammed ayaa markii ugu dambeysay hooyadiis ku duubnaa busto buluug ah sidoo kalena xirnaa shaati cad iyo sirwaal ku sawiran gawaari ama baabuuro. Baby Mohammed was wrapped in a blue blanket when he was snatched from his mother. He's just 1 week old. He weighs 2 kilograms, has dark brown eyes, black hair and light skin. The toilet, but when Britty came back the second time, then the lady was gone with the child. And Britty asked the security and he explained to her where she went. And she went